meeshaan laami waaye dadkana way fiirsanooyin laakiin wax iga yaabiya arkay dadka ay la yaabaan hadday rabaan meeshaan taaganahay almost 10 daqiiqa taaganahay yab dartiis sabab nin motoolaa istaajiyey wejigu ii xirnaa saas uu ii ahaa wuxuu istaagay meel 10 daqiiqo 10 tallaabo camal ii jirto waa fiiriyey waa u lugay waa u tegey wax dhacdaaba mooto wadatid lugaha oo kuma socotida xariifow ما أديسو ما ريفيس بس بحري ما حيزول لقيني وإفيريي حمرويني إجاي واللي يدخاخه وقف إبرزين قال لي وش قايب بالشدة كل حجر طبعا عنه ملها سوماليا وأوجا إن ماك إيسو قارن دونتيد أو إيسو كرباش دونتي لكن نين واحد اسكو أوجا هاي وحواي إن حلوة وحجرين إن شجوا aad maag isoo qaadan doontid isoo karbaashi doontid maqaayadaadana xaaba inaad iga dhigi doonto waa ogaa markaan kaa tagay waa ogaa laakiin anna sida haddaan qarxinaan sheekada wixii jira oo dhan oon dhexmadaan sheegaani haddaa sheegaa horta qofkii shalay magaalada joogay waa uu joogay magaalada shalay ciyaaraa ka jirtay jaam zaa'id ay ahayd xalay ilaa iyo 6 saac habeen magaalada jaamkeeda zaa'id waa mootooyinka dadka meel la kala maraa la waayay bakaar dhankeeda ka imaaday iidana waxay taagneed banaadir dhanka kaarmel ay taagneed waxay rabtay in ay xamarweyne aado marka hadda 10 daqiiqo ay sheegayso ka badan ay taagneed mooto la'aan jirto mana mootooyinku dhan waa lagu wada dhignaa dad badan meesha taagnaa oo mootooyin rabo marka koorsadan waxaan isir waxba ku mashquulin waa ii imaaday waxay horta marka bakaar xaggeeda ka imaaday waxay dhaafay waxay tiri gadaal u soo qaad inta taagantay soo saacanda waxay ay dhahay way soo way imaaday xamarweyne rabaa tiri xamarweyne ma rabtaa $3 bar isyaada marka ana marka waa ifaham weysay $3 bar marka isi markaan leey mina xamarweyne musaadiye gab iga dhac amal waa ku adkeeyahay $3 bar qof banaadir joogo xamarweyne $3 bar lagu tago 3 bar isyaada ano ay dhahay markii dambe 3 bar markay isyaada 3 bar haay wajigiisa aan furtay ima taqaanid miyaa tiri kuma aqaanaan dhaani waana ka socday dhac ma ka yeersin aniga laakiin dhac ma yahay hadii laakiin iyada qac ka dhigtay iyada qac ka aniga qac ma ka dhigin waa ka dhaqaaq marka ka dhaqaay dad badan meel horteed taagnaa ku meesha taagnaa qaatay magaalada jaamac ahayd saas daradeedna ugu tagay laakiin shakiya iga jira maadaama qoftan ay aan tahay inay xaaba iga dhigan doonto oo soo qaadan doonto oo meeshan ay ugu kala kacsan doonto waa ogaabani laakiin anna wixii jir waa sheegay waa ka saada billahi tawfiiq muuqaalkana baraha bulshada aad u qabsaday iyadoo warbaahinta caalamka aljaziira iyo CNN iyo warbaahinada afka dheer ee ingiliishka iyo carabiga iyo sawaaxiliga iyo luqadaha kale caalamka ku bax iyagoo aad u faraqeynayay la yaabna ku tilmaamay arrintan ka dhacday gabadhan waxa lagu leeyahay waa gabar madaxweyne ah wadan dhan ay madaxweyne u tahay inaab intuu imaaday caad iska farfareysan yaab shumis iyo wuxuu ku bilaabay gacmaysu ku bilaababa gabdhow haddii xadkiina aad soo dhaaftaan ragga waxaan kala kulmaysaan dhacdooyinkan iyo kuwo ka fool xun ilaahay wuxuu idin qorsheeyey in aad gurigiina ku ekaataan ilmihiina aad tarbiyaysaan waxbartaan ninkiina aad ka dambaysaan laakiin maalinkaad soo faragashataan xil iyo madaxweynenimo iyo wasiir iyo agaasime iyo shaqadii ragga looga targalo maalinkaad faraha la soo gashaan ragga waxaa kala kulmaysaan ceebtaan iyo ceeb ka daran naagtan waxay tiri yiri ninkan waa dacwaysanaa maxkamada geena maxaad dacweynay adaada timaha iska qaawan yihiino oo lagu farfareystayo shumis caadal uu boobsiibay ninkan wuxuu yiri ninaa umleeyahay kula naag dhoma oo haysan inay naagtan oo haysan kula waa yaabtay iyada yaabtaba dumarow wixii ilaahay idin qorsheeyay ku qanca ragga hoosha ay leeyihiin faraha la gelina والله عارف كان والله شو على وقفته والله بالله إنا لله وإنا إليه راجعون والله تنعب والله بالله تيم جيل مديسن دتك نفط نوك يعني تيك توك وحاول نقول لي كومنتي ميل ولا تيم جيل مديسن أنا جو أساسا و عارف كان والله شو عادي لو وقفته والله إدريس بيبا هرت صو قرحين كان أنا إدريس بيبا كان كي مركز ده من الفيديو عشان أول فيديو أركي waxaa la yidhi mustaqbalkaaga marka aad caan noqonaysid fiidiyoyaasha aad duubays waa inaad ka fiirsataa
haddaadan ka fiirsan maalinka aad rabto ummad inaad wax ka dhaadhicisid caadi lagu soo qarxinaya barnaamijkaaga oo dhan ma socnaade saaxiibka isagoo waxaa la keenay calanka Soomaaliya iyo calanka Khaatumo State kala dooranaa la keenay markaas wuxuu rabaa inuu Soomaalidan ka dhaadhiciyo Soomaaliyaan nahay calaamadan dad ay leeyihiin hal iska tuuro balaa dadka Soomaaliya qaadano intay ka dustay غير الجبان نو صارت بينا صدح ميكروفون على صارت سان اللي سان يا سان لو يا سان انا يا والله بالله يا والله يا markiis ugu horeysay oo GB uu ahaan jiray markuu fiidiyoashan uu soo duubana xariifow team waxa waay jilmaysan raali ahawsan noloshan waa lagu qabtay jaw ilaahay markuu lacag ku siinayo waa sida camal wallahi waxa lagu leeyahay maqaayada ninkana iskale oo maamulo ka ah maalinkii oo kaliya waxay bixisaa 400 koob oo kaliya bixisaa yiri ala halkii koobna waxa lagu leeyahay $100 laga waliga ay alaha masdeys adduunyada adoo joogo hal koob oo kafeeya $100 la iibin doona masdeys waliga wallahi adduunyada wallahi sahni wal meel ay u taala 400 koob waa 400 kun oo dollar waa birthday waaya ya dadku waa weynka oo taajiriinta ee waxa Saudi Arabia bisa gato oo qadeeyo waa ani waxaan isleeyahay maqaayadan way kala kici doontaa sababtoo ah dadka iyagoo gaajaysan adana waxay rabaan wax qaali inay gataan rabaan hadda fiiri qof jiingad degan oo waxaan arkaysaa hadda qof jiingad degan oo aan qadeynin waxba haysan xaalka uu jiq ku yahay oo iPhone 17 iska wata arkaysaa ya maan loo mar arkay qof guri ay ku jirto markaa aragtay si u yaalo haddana waxa waay 17 iska wadato ya guriga ay degan tahay telefoonka ay wata qaalisan marka dad noocaas ka jiro maqaayada inay kala kici doonto u baahan tahay kun $100 Sacuudiga waxba lama ahan inay isku soo sawiraan muhiimada ah marka waxa adduunyaha waa meesha ugu dambayso la gaaro aan isleeyahay intaan wax ka daran waa imaan doonaa isleeyahay haddii lagu dhihi lahaa maqaayadaas ninka shaaha ka karnay noqo nasiibkaaga muxuu noqon lahaa